nin tuuga oo xaday guri ku yaala dalka Yemen ayaa fariin u dhaafay dadkii uu dhacay taa uu ku cadeynayo sababta ku kaliftay inuu dhaco gurigooda. haddaba ku soo dhawaada mowduuceena maanta. السلام عليكم نبض داوده waxaan ahay Mustafa Cabdullaahi Maxamed halka aad iga daawanaysaanna waa Doohal Official. haddaba daawade fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeysay ee booqashada janaalkan inagu soo biir oo subscribe-ka inagu caawi mahadsanid. haddaba daawadayaasheena qiimaha badan waa mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoola socotaan commentiyada dhiirigelinta u badanna aad inoogu soo dirtaan. haddaba mowduuceena maanta ayaa ah mid aad u xasaasi ah aadna u xiiso badan waxa uu ku saabsan yahay nin tuuga ayaa dhac ka geystay magaalada Ticis ee dalka Yemen. tuugan ayaa markii uu guriga dhacay waxa uu fariin qoraal ah u reebay reerkii uu guriga ka dhacay taa uu ku cadeynayo sababta ku kaliftay inuu gurigooda dhaco. haddaba daawada sheekadan ayaa noqotay mid aad looga hadalhayo goobaha xiriirka bulshada internetka. haddaba sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Turkiga ee loo yaqaan Anatoly, tuugan ayaa dhaca ka geystay xaafadda Zahra ee magaalada Ticis ee dalka Yemen. waxa uu qaatay dhammaan agabkii yaalay guriga oo kaliya waxa uu ka tagay fridge-kii taa oo uga gol lahaa inuu ku gudbiyo fariintiisa. haddaba sida ay wararku sheegayaan gurigan ayaa tuuga marka uu dhacayay waxa uu ahaa faaruq oo cidna ma aysan joogin taa oo sababtay dagaalo ka dhacay magaalada ay joogeen ee Ticis. haddaba tuugan ayaa ah mid aad u xariif ah oo magaalada dagaalo ay aafeeyeen wali wax ka sii dhacaya. sayeshe dhacdada la yaab kale ayaa noqotay tuugan inuu warqad raaligelin ugu dhaafay reerkii uu dhaca weyn u geystay gurigooda. cajiib sida uu Tawfiiq Mushtaaq oo kamid ah qaraabada dhow ee qoyska la xaday u sheegay wakaalada wararka ee Anatoly, tuugan ayaa warqada raaligelinta ku dhajiyay albaabka talaagada kaliya ee guriga uu uga tagay taasi oo qof waliba oo guriga soo gala ay si durba ishiisu ugu dhacaysay waraaqda. waana shayga kaliya ee guriga uu uga tagay tuugan. haddaba tuugan qoraalka uu qoray oo aad u gaabnaa ayaa waxa uu dhignaa sidan: wallaahi billaahi idinma aanan xadeen ee waxa igu kaliftay gaajo, waa walaalkiin Cabdo Axmed. taasi ayay ahayd qoraalkii gaabnaa ee tuugan uu uga tagay guriga reerka uu dhaca aadka u weyn u geystay. sida ay qoreen wakaaladaha wararka ee Carabta iyo sidoo kale kuwa caalamka ayaa waxay ciwaan uga dhigeen sheekadan tuug idab badan oo dhacay guri ku yaala magaalada Ticis ee bartamaha dalka Yemen. haddaba tuugan maxaa daawaday adigu ku qiyaasi lahayd? maxaa ku kalifay dhaca inta leeg ee aadka u weyn inuu guri dhan oo reer leeyahay xado? ma la is oran karaa gaajo ayaa ku kaliftay? haddaba daawada mowduuceena maanta intaasi ayuu ku egyahay. waan dareemayaa sida fariimo badan oo si gaar ah soo gaaraya ay leeyihiin waxaanu ka codsanaynaa inaad muuqaalada inoo dheereyso, balse daawade waan tixgelin doonaa fariimihiina. muuqaalada xigana waxaan ka soo dhigi doonaa kuwa aanan dheereen aanan gaabneen insha Allah. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeysay booqashada janaalkeenan iyo janaalkiinanba waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe-ka inaga ilaawin. mahadsanidin.